الله تعالى وبركاته والسلام على أصحابتي اللي كنت حاطين الصور ميلو بعدين عشان ما أنت وحنا برنا كلا سبين أوف تريانجلز دولة كلا سارو تريانجلada markaanu kala saarno anu kala saari karnaa laba hab haba koowaad waxa weeye inagoo ka eegana triangles xagga xaglaha inagoo ka eegana anu kala saari karnaa tan labaad waxaan kala saari karaa inagoo ka eegana xagga dhinacyada si kala duwan yihiin inagoo ka eegana kala saari haddii aan ku hormaro xagga angalada markaan ka eegano angalada wax muhiim marka koowaad qofku inuu ogaado sida angalku u samaysan xagga waxaan ku haystaa bunti a b iyo c a iyo b waa isku xidhay b iyo c waa isku xidhay haddii aan bunti a iyo b kale isku xidhi lahaa xagal kama samaysan wax noqon lahaa hal ray laakiin haddii meesha ku kulmaan two rays waxa ka samaysan xagal haddii halkaas raygaas iyo raygaas meesha ku kulmaan waxa ka samaysan xagal xagashaas samaysan hadda waa xagal b marka la akhriyo xagal b wey waxaan kaloo akhrin karaa xagal c e a oo xarafka xagashu meel xog la dhexda waxaan oran karaa a b c marka dhexdaas u galaya xarafka ama xagal b xagalna waxaa loo soo qaataa calaamadaas ka xaglaha ka yar 90 waxaa lagu magacaabaa acute angle xaglaha 90 ka yar wixii 90 ka yar lagu magacaabaa acute angle xagashu haddii marka 90 ka yar haddii 90 noqoto xagal kuma noqoto waxaa la dhahaa right angle haddii 90 ka weynaato 180 ka yar tahay waxaa la dhahaa obtuse angle xagluhu waxa jira reflex angle iyo full angle reflex angle waxa weeye markay ka weyn tahay 180 ka yar tahay 60 waxa la yiraahdo full angle waxa weeye waa 360 circle marka inagu kuwana inoo muhiim kuwana ka sameynaa triangle marka xagashu markay tahay waxaan nidhi waxa lagu magacaabo 90 ka yar tahay waa acute angle 90 degree tahay exactly 90 degree waa right angle 90 ka weyn tahay ka yar tahay 180 na magacaabo marka xaglahan aan rabnaa inaan ka sameyno triangle tusaale ahaan oo kale waxaan isku xidhayaa hadeer a iyo c baan isku xidhay awal hore hal xagal baan hayay hadeer marka waxay u soo biirmay laba xaglood waxay u soo biirmay xagasha xagal a iyo xagal c labada xaglood ay u soo waxaan hoosta kow laba saddex xaglood sida ugu dhaxlo magacaabay triangle micnihiisu waxa weeye waa saddex angles-na waa triangle waa triangle xagal marka maadaama hadeer saddex xagalaha aynu ka dhisnay acute angle baan haysanay oo xagal 90 ka yar baan haysanay markii hore angle baan ka sameynay xagalaha ay sameeyaan acute angle waxa lagu magacaabaa acute triangle xagal hadeer koowaad haysan waxa weeye xagalka ka sameynay waa acute triangle maanta kala soocan xagga angalada xagalaha ay sameeyaan acute angles waxa lagu magacaabaa acute triangle because of saddexda xagalood waxay ka 90 xagashan waxay ka 90 xagashan waxay ka 90 haddii aynu ka sameyno tusaale ahaan oo kale right angle-ka haddii aan ka sameyno haddii xagasha 90 haddaan ka sameyno angle waxaan isku xidhanaa labada dhinac marka haddeerna sidoo kale waxaan ugu soo biirtay xagashaas iyo xagashaas waa saddex xagal isna laakiin wuxuu leeyahay xagal kaliya oo 90 degree labada xaglood oo kale 90 way ka yihiin labada xaglood ina waa acute angle in xagasha 90 ka kaasna waxaa lagu magacaabaa maadaama 90 angle right angle ka sameeyo waxa la dhahaa right triangle right triangle-kuna aad iyo aad ayuu muhiim u yahay markaan sii socono hadeer tusaale ahaan oo kale acute haddaynu ka sameyno acute-ka obtuse-ka haddaan ka sameyno obtuse angle-ka haddaan ka sameyno isagana triangle waxaan isku xidhanaa labadiisa dhinac markaasaan isku xidhno waxaan ugu soo biiraysaa laba xaglood waxaan ugu soo biiraysaa xagashaas iyo xagashan haddana waxaan haysanaa labada xaglood baan ugu soo biiray haddana waxaan haysanaa xagal isna laakiin saddexda xaglood maadaama xagalaha haysano oo aan ka sameynay obtuse angle waxay noqonaysaa obtuse triangle saddexda marka angalada ka eegano waxay noqonaysaa saddexda triangle bay noqonaysaa kala duwan mid waxaa sameeyey acute angle baa sameeyey mid waxaa sameeyey right angle baa sameeyey midna obtuse angle baa sameeyey magacyaduna waxay qaateen magacyada xagluhu sameeyaan marka kii acute ku sameeyey waxaa la dhahaa acute triangle kii right angle ku sameeyey waxaa la dhahaa right triangle kii obtuse ku sameeyey waxaa la dhahaa obtuse triangle markaas oo markaan ka eegano xagga xaglaha haddii aan ka eegno dhinaca sayrarka ama dhinacyada haddaan ka eegno triangle-ka haddii saddexdiisa dhinac isleegihiin dhinacaas iyo dhinacan iyo dhinacan isleegihiin triangle-ka
dhinacan saddexda angle saddexda dhinaca isleekaadaan saddexda angle waa isleekaanaya marka saddexda dhinac iyo saddexda angle waa isleeyihiin triangle-kan waxaa la triangle waxaa la dhahaa equilateral triangle saddexda dhinac isleekaan equi micnihi waa isku mid equi waxa weye waa equal micnihi waa saddexda dhinac isleeyihiin saddex angle waa isleekaan triangle-ka haddeer waa triangle-kan oo kale korna waxaa weye ujeedna marka labadana waa isleeyihiin kanaa ka duwan waxa weye kanaa ka duwan labadana waa isleeyihiin marka triangle-kan laba dhinac ka mid isleeyihiin laba angalna waa isleeyihiin maadaama angalka dhinacaas kusoo jeeda dhinacaas angalkaas dhinacaas kusoo jeeda angalkan labada angal waa isleeyihiin marka waxaa la dhahaa triangle-ka two sides iyo two angles oo kamid waa isleeyihiin waxaa la dhahaa isosceles triangle triangle-kan saddexdiisa dhinac kala maadaama saddexdiisa dhinac kala duwan yihiin saddexdiisa all sides and all angles are different triangle-ka saddexdiisa dhinac iyo angalada micnihi iyo angalada saddexdiisa angal kala duwan yihiin marka triangle-kan waxaa la dhahaa Galen triangle marka triangle-da saasaan kala soocnaa si aan rabno inaanu kala saarno triangles iyo bisides hadhow haddaan doono waan combination baan samayn karaayo angaladii iyo dhinacyadii YouTube.